arrin kala jirta oo inta saacida waa media oo haddana noogu darsoomeen social media ee noogu darsoomeen media waxna waa dhisaan waxna waa dumiyaan waa xaqiiqo weyn waxaan aan rabaa inaan xuso kuwa ugu waaweyn magacooda ma rabo inaan sheego waligood waxay ka hadli jireen wax dhibaato ah waxay ka hadli jireen waxbaa la dilay waxbaa la dhibaateeyey waligood kama hadlaan wax wanaagsan ama hal tallaabo dawladda ee qaaday kama hadlaan macnaheedu waxay tahay shacabka iyo maalin walba waxay ku jiraan sidii ay u qabjabin lahaayeen ama rajada uga qaadi lahaayeen haddii marka ay qayb ka noqon lahaayeen dhismaha dawladda oo ay sheegi lahayn wax wanaagsan dawladdu qabatay in dalkan waa burburay dhibaatooyin badan yaa haysta cadaawado badan yaa ku gaadaaman inay gacan siiyaan inta dawladdu ay ka qaado ay ka istaagto markaasay istaagtaa la oran karaa dimuqraadiyaa loo baxay oo dimuqraadiyaa la aaday laakiin dawlad aan ciidan lahayn oo institutionkii ama hay'adihii aan u dhisnayn madaxdii wax lagu dhaleeceeyo hadda waxa weeye waa runtii waa dad aan qayb ka ahayn ee horumarka iyo dhismaha dalka waxaan rajaynaynaa insha Allah media inay dhismaha dawladda iyo dalkooda ka mid noqdaan waliba kuwa gudaha ku jira ee dhalinyarada ah dadaal iyo ka tahay laakiin kuwa dibadaha jooga culays dhaqaalaha haysta xaqiiqatan maxaa yeelay waxay ku jiraan mortgage wax la yiraahdo deeman ay ku jiraan marka waa inay sensational ka dhigaan idaacadii wax daran inay sheegaan si loo dhageysto unximaayaan dadka Soomaaliyeed iyo meesha ka yimaadeen unximaayaan waxa mas'uuliyadda kaliya ka saaran tahay waxay tahay caa'iladooda bes iyo baabuurka xunka ah ee wataan deenka ah iyo guriga ay ku jiraan ma arkayaan carruurta meel loo soo celiyo iyo mustaqbal loo sameeyo ma arkaan waxay ka hadlaan waxa ay shabaab samaysay waxay ka hadlaan waxa dadka qalbi jabin kara waxay ka hadlaan waxa dawladda iyo shacabka iska horkeeni kara iyagana ilaahay waxaan ka baryaynaa inaysan ka fakerin noloshooda kaliya ay xoogaa dalkan wax ku darsadaan maxaa yeelay waxbay ku leeyihiin